mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa kulankoodii 13aad ee kala fadhiga koowaad uu shir gudoominayay kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Hirshabelle mudane Siraaji Sheekh Isaaq oo ajandihiisu ahaa dhameystirka dooda dib u eegista dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ka qabsoomay xarunta baarlamaanka ee Jowhar xildhibaanada baarlamaanka oo tixraacaya soo jeedinta iyo warbixinta guddiga dastuurka ayaa dood ka yeeshay ilaa 5 qodob oo dib u eegistooda baarlamaanka la horkeenay qodobada tan meesha ku qoran dadka jooga aniga kuma jiro waqtiga hore dadka loo qeybay safaraan ku maqnaa haddana waxaan qabaa dastuurkii dhammayba ma aynay xaroosan waxaa laga doodi karaa waxaan isugu jirnaa xildhibaano hore iyo xildhibaano dambe annagu waa daraasanaa wax alaala waxay ku jiray dastuurkii hore oo annagu aan leeyahay 60 iyo waxay ahaayeen 5 qodob annagu oo dagaalkeynay waxa aanu ku dhaqmayno waa dastuur iyo xeer wixii dastuurkaas iyo xeerkaas loogu qoran inaan ku dhaqanno waa muhiim marnaba inaan tiraahdo ciddaas waxay xaq u leedahay ciddaas xaq ma laha xildhibaanada ama dadka reer Hirshabelle dhammaantood waxay xaq u leeyihiin inay matalaad ku yeeshaan dowlad goboleedka Hirshabelle xubnihii dib loo soo doori waayey waxaa habboon in laga yeelo sida 4 sano hore aan soo shaqaynaynay hadday 4 sano dambe noqonayso waxaan dhihi lahaa horta yaa la soo qaadin ciddi xilkeeda ways maxaan ka yeelnaa ugu dambeyn xildhibaanada ayaa cod gacantaag ah ku ansixiyay qodob ka mid ah qodobada ay ka doodayeen oo ah in mas'uulkii u hoggaansami waayo u yeeridda baarlamaanka ay xildhibaanada xilkiisa dib u eegis ay ku samayn karaan waxaana natiijada codeynta ah ku dhawaaqay kusimaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabelle xildhibaanada sharafta badan qodobkii aan u codeynay ayaan rabaa natiijadiisu waxay noqotay inaan sheego qodobka aan u codeynaynay haddaan dib ugu celiyo wuxuu ahaa مسؤولية هذا حكومة كسر جواب علم ويوم هو كاسمي ويريس كفراها عذر دارلان إن قولها دب ويريس كسمين كرم سيدا كل سنقضى كسرطني أفراد الدستور كا ولا لها في قضب كتدواتنا ده حراسات كفراها إن قولها أول كلية هاي مسؤول كديدة ويريس سوبلان إنه دب ويريس كسمينه حل كيسا قضب كاسو عن حلبان هذا قد كلني waxaa odaysay 60 xildhibaan waxaa ogolaatay 53 xildhibaan waxaa diiday 4 xildhibaan waxaa ka aamustay 3 xildhibaan sidaas ayuu qodobkaasi ansax ku yahay shirkeenana waa noo xiran Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Jowhar.